بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا وربحنا دي قدام بيه وكسر بحيا ورر عاوة أي حل الدم بيه كقاعد إسرائيل إيران أي عاوة قاعد ورر للشجنة وجوابي سوق ورر كي جنتالا ده إيران أي كودي بيشن أكتوبر كقاعد يدنا إسرائيل ورر كاس أي جنتالا ده هاي إيران كقاعد يدنا إسرائيل لو أركي وركوينا تاريخ ده لكلانتي إسرائيل إذا تاخد كجوابي سوى عاوة ورر أي وأديك سنة سديار ده هذا دجال كاي كقاعد جدها إيران marqura ayaana la helay warka la xiriira in qaraxyo ka dhaceen magaalada Dexraan kadibna waxa xigtay shaacinta ka timid dhinaca Israa'iil la xiriirtay inay qaadeen weerarkooda jawaab celintaha ay uga jawaabayaan weerarkii gantaalada dhinaca Iiraan ilaa hadda weerarada ay Israa'iil ku qaaday Iiraan waxay u muuqdaan inay ku kooban yihiin saldhigyada militariga iyo xarumo kale ma jirto weerar laga soo sheegay inuu ka dhacay xarumaha nuclear-ka ama goobaha shidaalka ee Iiraan taa oo jirta haddana wax badan lagama oga intuu gaarsiisan yahay weerarka Israa'iil طبعاً ديارادooda loo badan inay yihiin nooca F-35 oo ah diyaaradaha dagaalka Israa'iil ee Mareykanku soo saaray ee dulmaray hawada Iiraan waxayna duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaala bartamaha caasimadda Dexraan nidaamka difaaca hawada Iiraan wax falcelinaya ma uusan muujin xadgudubyada ama weerarada ay Israa'iil ka geysatay gudaha Iiraan iyadoo diyaaradaha dagaalka Israa'iilna ay ku duuleen hawada magaalada Dexraan ee caasimadda Iiraan qofna si sax ah uma oga waxa ku dhacay nidaamka difaaca Iiraan ilaa hadda wararka Israa'iil waxay ku saleysan yihiin muuqaallo lagu soo bandhigay baraha bulshada si rasmi ah ma jiro cid u shaacisay intuu gaarsiisan yahay weerarka ay Israa'iil caawa ku qaaday Iiraan dhinaca Israa'iil ma jiro xog laga soo bandhigay Iiraan oo ilaa hadda wax warar kama soo bixin inta badan bartilmaameedyada ay beegsatay Israa'iil waxa iskala ilaalada kacaanka Iiraan ilaa hadda ma jiro wax warar ku saabsan haddii Israa'iil ay beegsatay xarumo dawladeed ama xafiisyo ay dawladdu leedahay sidoo kalena ma jiro tilmaamo muujinaya in xarumo nuclear ama goobo xiriir la leh xarumaha nuclear-ka Iiraan iyo goobaha shidaalkaba inay weerarado ka dhaceen laba ilood oo bariga dhexe ayaa shabakada NBC News waxa ay ka soo xigeetay in weerarada Israa'iil ay ku qaaday Dexraan in lagu bartilmaamay sida xero ama xafiis iyo goobo hubka lagu kaydiyo oo ay leeyihiin ilaalada kacaanka Iiraan tani waxay u muuqataa inay tahay jawaab aad u xadidan oo Israa'iil ka bixisay oo lana beegsatay goobaha ilaalada kacaanka Iiraan ee ku yaala agaarka caasimadda Iiraan ee Dexraan waxay u badan tahay inaynan ogaan doonin ilaa inta uu leeyahay weerarkaas ilaa waagu uu ka bariyeeyo ama la helayo warbixino labada dhinac ka soo baxa laakiin waxa ogtaa iyadoo loo marayo tilmaamaha ama goobaha qaraxyadu ka dhaceen in la beegsaday xarumaha saldhigyada ah ee ku dhow caasimadda Dexraan iyo goobo kale oo bartilmaameedyo kale ah wakaaladda wararka ee Faris Iiraan ayaa ku warantay in saldhigyo ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ay ku leeyihiin galbeedka iyo koonfurta galbeed ee caasimadda Dexraan in duqeymaha Israa'iil ay ka dhaceen Bantukanka ama waaxda difaaca Mareykanka ayaa si dhaqso leh uga hadlay weerarkan iyagoona sheegay in ciidamada Mareykanku aysan ka qayb qaadan duulaanka iyo duqeymaha Israa'iil ay ka geysatay gudaha Dexraan telefishinka Al Jazeera soo xiganayana Israel Hayom wuxuu sheegay in Netanyahu iyo wasiirkiisa difaaca Glantan inay ku sugan yihiin qol dhulka hoostiisa oo ku yaala xarunta wasaaradda difaaca Israa'iil halkaas oo la sheegay in kala socdaan weerarka ay diyaaradaha Israa'iil ka geysteen gudaha Iiraan sawir kale oo la baahiyay xafiiska wasaaraha Israa'iil u baahiyay ayaa laga arkayay Netanyahu wasiirkiisa difaaca Yoav Gallant ay weheliyeen xubno ka tirsan saraakiil dhinaca militariga oo ku sugan xarun la sheegay inay ka tirsan tahay wasaaradda difaaca Israa'iil oo ciidamada Israa'iil ay ku leeyihiin oo ku taala magaalada Tel Aviv halkaas oo la sheegay inay kala socdaan weerarka ay diyaaradaha Israa'iil ka geysteen gudaha Iiraan hadduu ay beedmo waxyaabaha ka soo kordha weerarkan iyo dhacdooyinka la xiriira ayaad maqli doontaan laga soo bilaabo isla waqtigii ay qaraxyadu ka dhacayeen Dexraan ilaa iyo inta ay sii socdaan weeraradaasi waxyaabaha ka soo kordhaba waxaan si toos ah ugu tabinayay barahiga Facebook iyo Telegram oo Imaan Jaamacad ku heli kadib dhacdo kastoo dunida iyo bariga dhexana isla waqtiga ay dhacayso ayaad ka heli doontaa hadduu ay beedmo intaan mar kale kulmayna sidaas iyo amaan Allah